بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waan idin mahad celinayaa inaad soo ajiibteen kulankan ugu timaadeen. Si gaar waxaan ugu mahad celinayaa labada agaasime waqtigoodii inoo soo horay. Agaasima Cabdiraxmaan oo dadkoo dhan ugu soo horeeyay runtii waan ka raali gelinayaa dib u dhaca oo aan u mahad celinayaa. inta kadib si kooban anigu waxaan jeclahay in laba arrimood uga hadlo midna yahay xaqdan waxay tahay midna ujeedada shirkan ka leenahay. xaqdan waa xafiis sharci oo adeeg sharci bixiya oo 2006 la aasaasay marka hadda dhowr iyo 10 sanadood jiray. waa xafiiskii anigu aan ku soo galay sharciga maaragtay oo berigii horeysay practice-ka berigan ardayga ahaan aan ku qaadan jiray oo garyaqaano maaragtay khibrad badan oo senior yahay waaga sameeya. waxaan shirkan u qabanay markaa waxay anaga naga yimi maadaama nahay dadka sharciga ku shaqeeya waxaanu aqoonsanay in marka laga yimaado adeega sharciga ee hay'adaha cadaaladda ee qaranku bixiyaan qareenaduna ku shaqeeyaan maxkamadaha xeeraalinta booliiska wasaaradda cadaaladda marka laga yimaado qolyahaas dhinaca kale waxaa jira adeeg bixiyaal kale oo ay ka mid yihiin dhaqanka oo miyada iyo tuulooyinka laga yaabo keligood bayna yihiin cidda dadka u garnaqda magaalooyinka dad badani ay aadaan oo ay u tagaan ama ha ahaadaan aqoonta dhaqanka u leeyihiin ama kalsoonida shacabka ku qabo ama degdega ama fudaydka. waxaa magaalooyinka waaweyn ku soo kordhaya iyana xafiisyo adeeg dadka u garnaqa oo si shareecada waafaqsan ugu garnaqa oo culimo ay madax ka tahay. marka saddexdii nidaam adeegyo bixinayaan waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay iskaabayaan oo matalan dhaqanku meelaha aanay dowladdu joogin inuu shaqadii dowladda u qabanayo oo iskaabayaan. waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay tartan ka jiro oo laga yaabo adeeg soo doona dadka serviceka raadsanaya shacabka inay caqabad ku tahay. waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood in forum fishing ka dhaco ama qofku siyaado teebaa kuu fudud oo qof kale dabeedna lagu dhibo. marka maadaama nidaamkiina sharciyana korayo ujeedooyinka dowladdana somalilandna markaad eegtid horumarinta ay ka mid tahay qorshaha horumarinta qaranka ay ka mid tahay in adeega cadaaladda la kobciyo dowladduna ay aqoonsan tahay yoolasha horumar waaro oo 16 ku jirto helidda cadaaladda. waxay nala noqotay in dadka ay khusayso oo ay ka mid yihiin dadkii ku shaqaynayay nidaamkan iyo dadkii shacabka ahaa adeega doonanayay inay ka wada sheekaystaan arrinkaas si ay ugu noqoto wax cusub oo aynu sii wadno sideebaa horumar looga gaari karaa oo wixii jira loo sii horumarin karaa alla aynu ka soo saaro. dabadeedna aan rajaynayno insha allah mustaqbalka dheer ama ka dhowba in nidaamkaasi koro. annagu ma lihiin aragti gaara yani isma lihiin ka dowladdu dabcan loo yaraano ka dowladdu baan naqaanaa ku shaqaynaa laakiin fikirkaygu maaha ka dowladdu ha shaqeeyo keliya laakiin ujeeddadii waxa weeye mid walba adeeg buu bixinayaa sideebeen u horumarinaa meelaha iska waafaqi karaan. dad khubraaba presentation samayn doona panelka ka sheekaysan doona laakiin ujeeddada weyn aan leenahay waa taas waa wax local initiative oo gudaheena ka yimi annaga xafiiska iyaguna inala noqotay in laysu yimaado. waxay kaloo nala noqotay maadaama adeegii ku shaqaysanno oo meeshan ka faa'iidnahay adeegga sharci horumarkiisana inaan wax ku darsanno oo dabeedna ay tani qayb ka mid noqoto. marka xafiisyada kale sharciina waxaan rajaynayaa qareenada kale inay qareenadu maalin walbaba mawduuc jira ay wax ku darsadaan ama nidaamka sharci ka faa'iidayaan kobcintiisa iyo korriinkiisana inay qayb ka noqdaan. qareenada iyo dadka xirfadlayaashaana mar walba sharciga kora ayaa dantii ugu jirta. marka runtii aad iyo aadna waan idinku mahad celinayaa waan idin soo dhoweynayaa. asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu.